Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Maanta Ilaahay hadduu idmo waxaan halkan kugu soo gudbinayaa wax yar oo talooyin ah sida ugu fudud ee Qur'aanka Kariimka ah ku xifdin kartid. Balse intaan u galin taas aan ka hadlo wax yar darajada Qur'aanku uu leeyahay iyo qofka barta oo ku camal fala Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku abaalmarin doono. Walaalayaal waa ogtihiin qofka Qur'aanka yaqaan oo xaafidka ah maqaamka iyo darajada uu ku leeyahay bulshada dhexdeeda inta uusan dhiman ka hor. Waa ogtihiin meelaha la isugu imaado mujtamaceena Soomaalida ah qofka xaafidka ah waa uu ka magac dheer yahay dadka intiisa kale. Waa aragteen salaad haddii la tukinayo isagaa loo hormarinayaa, haddii taraawiixda la tujinayo qof kasta gadaal buu marayaa. Maxaa yeelay hawsha xaafidka uu hayo waa hawl aad iyo aad u adag una khayr badan. Qof kasta waa uu jecel yahay inuu xaafid noqdo. Waa jeceshahay adiga inaad dadka salaada tujisid, waa jeceshahay meelaha la isugu imaado in kursiga ugu horeeya lagu fadhiisiyo. Haddana badankayaga inaan u shaqaysano diyaar uma nihin, qalbiga baan ka rabnaa. Laakiin xaqiiqa ahaan waa wax aad iyo aad u fudud inaad Qur'aanka aad baratid ama xifdisid. Khaasatan dadkayaga Soomaalida ah inta badan markaan yarayn Qur'aanka waana laga soo wada baray, laakiin dhibaatada waxay ka imaatay inteeda badan waa wada ilowday ama qofkii waa u yaqaan haddii kitaabka loo dhiibo laakiin ma xifdisana. Qur'aanka kitaabka aad akhrin kartaa ma xifdisanid, kitaabka laftigiisa waa kasii iloobaya, hawlo kale adduunya isaga mashquulsan tahay. Waxaan kaloo aan ku mashquulsanahay inaysan raacayn waa ognahay, wax kale raacaya waa Qur'aanka. Marka Qur'aanka darajada uu leeyahay wax la soo koobi kara maaha, laakiin qaabkee ku xifdin kartaa oo ugu fudud ayaan rabaa inaan wax yar aniga qaabka aan naftayda ku upload gareeyay oo aniga aan isku tababaray ayaan rabaa idinkana inaan idin soo gudbiyo. Juska sidaan ognahayba waxa waaye 8 maqro. Maalintii waa kuu fududahay inaad xifdisid hal maqro. Waxaan la hadlayaa qof oo Qur'aanka kitaabka ka yaqaan laakiin aan korka ka aqoonin. Maalintii markii hal maqro ah xifdisid 4 beri waxaa ku xifdisan tahay xisbi. Hal xisbi 4 beri ku xifdisan tahay. Maalintiina waxay kugu qaadanaysaa inaad xifdisid maqro wax yar oo ku celcelisid oo maskaxdaada ku programmisid baa ku xifdin kartaa. Haddii rabto waxaad xifdin kartaa maqro inaad aadan xifdin karin, waxaad xifdin kartaa hal page kaliya. Hal page ayaa xifdin kartaa oo labadii maalmood markaas aad maqro ku xifdisan tahay. Markaas labadii maalmood oo kale maqro kale, labadii maalmood oo kale maqro kale, 2 maalmood 4 beri markaas waxaan 8 beri markaas waxaa ku xifdinaysaa xisbi. Laakiin haddaad maqro maalintii xifdisid 4 beri xisbi ayaad ku xifdinaysaa. 7 beri oo asbuuc ah ayadana waxaa ku xifdinaysaa 7 maqro. Jusku marka waa 8 maqro aan dhahnay. 7 beri markaad ku xifdisid 7 maqro markaad ku xifdisid juska dhan waxaa kaaga dhiman hal maqro kaliya. Ayadana waqti waa u heli kartaa oo jus waa kusoo koobi kartaa. Asbuuc kasta inaad jus dhahdid juskan asmac salaameyn adoo xifdisan juskaas markaa xifdisid masana haddaad 8 beri ku xifdin kartaa oo maalinba maqradeeda u goyn kartaa si schedule oo aad ugu socotid. Haddii kale jus ayaa kusoo koobi kartaa maadaama aan waxba kaaga dhimanayn. Asbuuc kasta jus ayaad xifdin kartaa. Juskaas aad xifdisid inuu kaa baxsadaa aad ayay u fudud tahay inaad xifdisid, laakiin uu kaa baxsado oo aad ilowdid ama sidii hore aad ku noqotid oo kitaabka akhriska aad ayay u fudud tahay. Inaad haysid marka waa inaad qaabab aad la imaatay adiga aad haysid
oo xifdisanaatid qaabkaas waxaa ka mid ah masalan markaad baabuurka wadiyo oo kale haddaa baabuur leedahay masalan dadka qurbaha ku nool inta badan baabuur wadaan inaad intaa wax kala dhegeysan lahayd aad markaas qur-aanka ku celceliso oo juska asaaskaaga baxsan habeenkii oo kale markaad sariirta intaad tagtay aad seexanayso dadku intiisa badan xoogaa bay hurdada raadiyaan inaad ku celcelisid oo aad akhrisatid saas marka aad ku haysatid juskaasna aad ku xifdisay asbuuci kalena jus kalaa xifdisay asbuuci kale bishu waxay ka kooban tahay 4 asbuuc 4 jus asaas ku xifdisay bish amase haddaad maalin kasta maqrib ku socotid bishi waxaa ku xifdinaysaa 8 beri markii adiga aad ku xifdisid jus 8 berina jus kale waa 16 beri bishi markaas waxaa kaaga hartay 8 beri oo kale jus kale ku xifdi 8 beri 16 plus 8 kale lagu daray 3 jus iyo bar ayaa waxaa ku xifdinaysaa 3 jus iyo bar 3 jus iyo xisb ayaa waxaa ku xifdinaysaa bish asaa ku xifdisa bisha kalena waxaa ku xifdinaysaa 3 jus iyo xisb sidoo kale soo marka 4 bilood waxaan dhihi lahaa 6 bilood meeqa xifdisan tahay markaas adi maskaxdaada ka calculate garee 6 bilood meeqa xifdisan tahay oo bishiiba aa xifdisay 3 jus iyo bar qaabkaas markaa ku wadid haddaba aan xisaabiyo 2 bilood waxay noqonaysaa 7 jus 2 bilood oo kalena 7 jus 14 plus 3 jus iyo bar kale lagu daray waxaan dhihi lahaa 2 bilood oo kalena 7 jus ah 21 jus 6 bilood saa ku xifdisa waxaa ku dhiman qur-aankii dhan waxaa kaaga dhiman qur-aanka waa 30 jus 20 jus aa ku xifdisay 6 bilood waxaa kaaga dhiman 9 jus aa ku dhiman 9 jusna bishiiba haddaa xifdisid 3 jus iyo bar 2 bilood 7 jus lagu daray 21 waa 28 jus markaasna waxaa haysataa 8 bilood 2 jus oo kalena bil gudaheed aa ku xifdinaysaa soo qur-aanka dhan waxaa ku xifdisay 9 bilood hadda markaan sanadkii waxaan soo dhaafnay 2003 aan soo dhaafnay 2004 ayaan galnay hadda maanta wuxuu marayaa 2004 waxaan u malaynayaa maanta waa 5 marka saas ayaad aad ku xifdisay sanadkan soo dhaafay ilaahay idankeed dad aad dhegeysatid baraarujintan yarta ah aan inuu duubayo waa inaad ku fara adeegtaa amase sanad kastaba saas inaad ku talagashid in qur-aanku u sahlan yahay kabacdina markaa xaafid noqoto faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa kamid ah qur-aanka naftaada horta ba ku faa'iideysa oo rasuulku waa dhahay qofka qur-aanka bartana ayaa dadka ugu khayr badan xaafid ayaa tahay dadka waa ka magac dheer tahay hadii qofka bachelorka haysta uu ka magac dheer yahay dadka xaafidka kasii magac dheer xaqiiqa ahaan dadka bulshada Soomaalida ah qofka qur-aanka yaqaan aad baa loo karaameeyaa xifrad ahaan waa ku shaqaysan kartaa qur-aanka dadka bari kartaa meel kasta qof qur-aan dadka bara laga raadinaa waa aragtay dadka dad la hadashin dhibka ka haysta inay macallin helaan soo marka tajwiidka qur-aanka inaad baratid way sahlan tahay sidoo kale maanta waxaa la joogaa adduun casri ah internetka ka baran kartaa everywhere qof kasta kuu sharaxaya professional Quran teacher inaad noqoto oo aad qur-aanka waa lagu faanaa qur-aanka qof qur-aanka yaqaan waa ku faanaa qur-aanka macnaha hul inaad la gashid ma waa ku faanaa adoo ilaahay uga cabsanaya haddana dadka darajo ilaahay uu ku siiyo aad dadka dheer tahay waa marka inaad ku faantid wax dhiba kuma jiraan faanka markan ka hadlayno istus macaan faan wax waaye ilaahay wax uu ku siiyo waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.